dugsiga secondary-ga sare ee Ardaale ayaa saaka waxa lagu qabtay xafladda soo xiritaanka tartanka diiniga ah ee u dhaxeeya ardayda dugsigaasi waxaana si gaar ah loogu tartamayay siirada nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana xafladan soo qaban qaabiyay maamulka iyo macallimiinta ardayda dugsigaasi sare ee Ardaale waxaana kala soo qayb galay marti sharaf kale waalido iyo ardayda iyagu maanta kaalimaha koobaad ka gashay ugu horeyntii waxa xafladani ka hadlay maamulka dugsiga sare ee Ardaale Umar Cilmi Warmahaye oo ka waramay tartanka iyo marxaladihii uu soo maray waxaana uu sheegay in xafladani ay tahay tan lagu soo gabagabeynayo tartanka diiniga ah barnaamijka siirada rasuulka mahadnaq waxa laga yaabo waxa leeyahay dhammaantiin naftayda iyo naftiinaba waxa kala tartamaya markaa ay cabsida ilaahay naga wada inta ka bacdi waxa leeyahay reerada waxa ku caayay inay qabtaan xasbadaha nooca kala ma ahayn cusubada waxay weeydoonaan weynooyaan ilaahay misaas marka anu waxaan leeyahay si fiican oo soo qeybgashaan si fiican isku dhegeysano oo loo qabanaya inaga barnaamijyada kale ee bishaan islaahay oo loo qabanaya oo soo doonaa oo soo tartami doonaa maadaama sanadku oo gabagabayahay waxa qabanayna kulli ka hadalkii imtixaanaadka qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay waxaana ay dardaaranna kala duwan ay u direen ardayda dugsiga sare ee Ardaale waxaana ay sheegeen gudbi kara waxyaabaha ka hor imanaya challenge-ka ama carqaladaha hor istaagaya muxuu ka gudbi karaa wuxuu ka gudbayaa wasbiru in allaha ma'a sabirin bilahay iska sababo dadkaas ilaahay la jira marka waxaan kaga sii bixi lahaa in la sabro oo fiilka waxbarashada fiilay nagu dheereen maayo laakiin dardaankay wuxuu yahay war macallimiinta waqtigeena siinaysa abaalka inagu leeyihiin ma aha mid aan gudi karno ha ugu darin maanta markaas wax ku adkaato inaad macnaha ku taagnaato waa mid markaas wax weeye bari kamaan adiga kaabu ah marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xabsano ilaahay subxaanahu wa ta'ala nimcada siiyay geesta kale iyaguna waxa dhankooga ka hadlay gudida waalidada dugsiga sare ee Ardaale waxaana ay sheegeen inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin ardayduna ay had iyo jeer akhlaaqadooda iyo waxbarashadooda mar walba ay wanaajiyaan anagu ducaan ku darayna salaanta hadaatiin ardaydii Ardaale waxaana leeyahay ka baahan yahay in dalka iyo dadka toosisaan marka toosisaan waa maxay ومرجع تعيينتي نقول قاطع. دلالة. إلهي وضع توصل هاي المسلمة. وحبرشتنا هاي تيجي عليسي. معلمين هاي تيجي عليسي. وقف بكون هاي جعلانه. والدينا أداء وكذا تهريب فيه. دبعتنا ذوق. مرجع دخاتيرته واحد ويا دول خوش كي مدوج الكينا لكن قلبي واحد ويا علمنا. مرجع كل قلبي إنه دافع فربنا مدرمة يا دخاتيرته قلبي دوينا. أكبر هنا إن شاء الله تعالى. تيجي وحويان إسكانها عبارة وعن كل اللي شرط كمان إسكان كلية. وحوي عبدنا ما شو كان وحويان هذا آدم ونعسان وأقام ما بالكورة معلمين تولا لما أنت ما تشرفت ما أقول لماذا أنت ما صقيم بس أنت ما أدوج. كلوا وكتي ويا قف بكرة إسكمان نورا وقف كمسلم وقف نورشيسة يا حياتي صادم يوم هواي معاملات كي صادم guntii iyo gabagabadii waxa abaalmarino kala duwan la siiyay ardaydii ku guuleysatay kaalimaha hore ee tartanka diinta maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi sare ee Ardaale ma aha markii ugu horeysay ee xaflad sidan oo kale ah ay qabtaan ardayda dugsiga sare ee Ardaale Axmed Diriye Ciiltire Raya TV